waxa labaad uu dardaarmay labada ragcadood ee salaatu duha la yiraahdo labada ragcadood fadli weyn buu nabigu ku sheegay qofka buuri qof kasta oo muslimo waxa lagu leeyahay xubnihiisa 360 ka inuu sadaqa ka bixiyo mid walba sadaqa ku baxday nicmadan weyn ilaahay uu ku siiyay cid kale ku siin karay nicmada isha ta dhegta ta gacanta ta xubinka ta meel walba waxay istaahishay inaad subaxdii intaasoo ka dhiibto soo waxba la cashuuramaad maqal subaxdii walba waxay istaahishaa sadaqa ku baxday si aan ilaahay kaaga manfaacad tirin dheefteedu ay kugu joogto inaad subax walba dhiibto sadaqadeeda haddii nin baa dee si weydiiyey nabigo wuxuu intaasoo dhan waxa kuu oofsan kara inaad labada ragcadood tukatay ee salaatu duha la yiraahdo aadna way qiimo badan qofka labada tukada inuu ilaahay u soo jeedaa bay sheegaysaa salaatu al-awaabin hina tarmadu al-fisal salaada dadka ala yaqaanka ilaahay in badan toobad keena salaatu duha waqtigeedu waa marka nirguhu caga gubyoodaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam nirgaha hadiya jeer bacadka meesha bataaxa ah ee niista ah saxaraaga nirgaha yaryar cagahoodu way gubtaan waa waqtigaas macna waa barqada kulul markaas ay fadligeedu sii baday waqtigaas inta badan waxa loo badan in la shaqo tago qofka munhamik fil amal isagoo shaqadii ku dhex jira intuu iska soo qabto isu taaga cibaado waa qof arrinkiisu tiirsan yahay hadduu xafiiskiisa joogo sajaadiisa yar budhiganaya hadduu meherada joogo dhinacaas ku janibaya hadduu kuuli ku jira halkaas u galaya balka war qofka shaqo culus waqtiga ah ee halkaas salaad la tagay dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay ilaahay uu suufiyoobay waqti la tukadaba ma ay talay maxay ahayd tukanaysa inay qaar ku dheeldheelaya yiraahdaan noocaan tukaniba ee taariikh salaadka ah war miyuu suufiyoobay goor la tukadaba ma ay waqtiga la shaqeynayay duhurna ma gaadhin marka waxay sheegaysaa qofka awooday inuu waqtiga nafta ka soo qabto waxa weeyaan waxaan oo dhamina waa dawadii nafta dawadii cudurrada kala duwan ee nafta ayaa arrimahan uu ku cilaajinaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam al-amraad ar-ruuhiyya cudurrada ku dhaca ruuxda iyo jirka intaba waxa daweeyo wax alla waxa soo soom iyo salaad iyo dhikri iyo duco uu nabigu inoo tirinaya alayhi salaatu wasalaam marka qofkii weydba ha iska haabo ha iskaba gaajaysnaado haddana waa qof qawi ah abi hurayra gaaj uu baqtiyaya waxaanu cibaadana u wadaa isagii aba kula gaajaabaan dhulka jiifayba inagoo laba liqayna intaasoo jeerna waynu cabanaynaa kun kiniin baynu liqaynaa oo maalin walba waynu isdaweynaynaa waa dadkiiba hooste ka daloola almuhim xataa shayaadiintu qofka caynkan oo kale kuma soo dhiiran karaan lannahu waduu silaax hub buu leeyahay difaac adag buu leeyahay markaa cid soo hawaysanaysaa ma jirto qofka isaga arinta kalena waxay ahayd witriga inaan tukado qofka daalibul cilmiga iyo qofka shaqeynaya maanta oo dhan amal ku jira fursad u heli waayo inuu xataa yara seexdo markuu cishaa'iga tukado ee uu hawlihiisa kala dhamaysto ee sunnii cishaa'igana uu dhameeyo hadduu raaciyo 12 ragcadood ama 9 ragcadood ama 5 ragcadood ama 3 ragcadood kolba ku karayo خلاص witrigiisina uu raacsaday marka saddexda arrimood ayaa uu ii dardaarmay uu saaxiibkay abi hurayra kaligiina ma waa ummad oo dhan taasina waa sunnayaashii soomkii sunnayaasha ka sideedaad waxa weeye صوم يوم وفطر يوم وأفضل صيام صوم داود عليه السلام وأنه قفكم مالنا صومه مالنا أفره عد كريسة أبو يرت وصوم كأفضل بدن بالرسول صلى الله عليه وسلم نبي داود بس سدا أسوامي تري مالين والبا وحي كدق أنت صوم عصبه مركز ما أنت نفتي أي لا يرى قبصت إد بريته هذا أفرت إد هذا نميت كلام مالين والبا وصوم بلا وهم أي كدق أنت إلا نفتو برتاك gaajadii dherega labadaba marka soomkaasina waa ahabbu siyaami ila Allah siyaamu daawud ayuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam waxa markaa haboon inaynaan bilnaba ka marinin soomka qofkii dee bukaani waa halkeeda cudurro kala duwan laakiin qofkii caafimaad qaba bahasha nafa waa inay ciyaalnimada ka baxdaa xagga niweynimada loo jeedaa go'aankii iraadada yeelataa وأن تتربى على إرادة قوانك وين أقبشاه هذا سوى شيء صوم كان سنها مسائل بولية وكجد وينها أنت فرا بدن عبادة فرا الكية السنة هاي
xagga sharci ahaan waa isku mid cibaadada rag iyo dumarku waa isku mid wixii sharcigu kala duwa mooyaane wixii sharcigu kala duwo ayuunbaa ay ku kala baydhayaan waxyaaba ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a tabyiitu niya soomkan faradka asaynu horeba usoo xusnay habeenkii baa lasoo niyoonaya laakiin soomka sunnaha waxba taasi shardi maaha gelinka hore qofku wuu niyoon karaa haddaanu laakiin wax cunin hadduu quraacday dema niyoon karo haddaanu waxba soo cunin wuu niyoon karayaa gelinka hore shardi maaha inuu habeenkii soo niyoodo taasi waa masale ay ku kala duwan yihiin soomka faradka laakiin habeenkii waa inaad go-aanka soo qaadataa niyada habeenka xagga hore dhexda aakhirka midkii doonaysa ahaato waxa labaad ay ku kala duwan yihiin almutatawic amiiru nafsi qofkan soomka sunnaha ah soomani soom sunnaha markaynu leenahay waxaa ka baxaya soomkii faradka ramadaan soomkii kafaara gudka soomkii nadarka kuwayaalahaasoo dhamme waa soom faralhoo ikhtiyaaruma leh soomkan sunnaha ah isaga ayaa naftiisa ka madaxa hadduu doono wuu jebin karaa oo haddii qaar kugu dhagaana yidhahda war nala cun waad casuuman tahaye ilaa wailaa adigoo af xidhanna ag fadhihi maysid iskala cun rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisa ayuu yimid oo wuxuu yihi quraac ma lahayaa maya bay dhah waa rasuulki ilaahay sala allahu calayh wasalam de haddaa waabaan soomanay qadoodiguna suuqaan u yeelo qadoodigii ayaa qiil wanaagsan uu sameeyey uu ka faa'idaystay nebigu calayhi salaatu bal fursaddaa eeg intuu iska qatanaan lahaa cibaadu ka dhigay sidoo kale mararka qaarkoodna nebigu calayhi salaatu wasalaam xaasaska ayuu yimidoo waxay ku idhaahdeen in yaroo wanaagsan oo raashinaanu ku haynaa bal iska keena buuhi waabaan soomanaabe kaa waabaan anaaba xayskaa yar u baahan xays waa raashin yaroo jacbura ama caynba caynoo isku jir ah saas marka taasi waxay tilmaamaysaa inuu qofku jebin karayo almuhim waa masalo kale uu kaga duwan yahay waxaynu soo xusnay soomkan sunnaha in la soomi karayo qallihii faradka intaanad gudanin iyadoo qallihii faradka lagugu leeyahay noocyadiisa kala duwan soomkan sunnaha ah waad soomi karaysaa qallahana waad sii dambaysiin karaysaa qowlka raajixa ah soomkan sunnaha ah waxyaabaha usii gaarkaa waxaa ka mid a ee hoosta laga xariiqayo ruuxa dumarka ahay marka ay soomayso waa inay ninkeeda fasax ka qaadataa daacada ninkeedu waa waajib soomkiina waa sunni marka hebelow waan soomayaa la soco dee isaguna nin wanaagsan hadduu yahay waa inuu idhaahdo de waabaad fiican tahay islaan khushuucsanoo soomaysaaye bal sii wad oo aanu odhanin maya waxba ha soomin isagana saasaa u fiican laakiin hadduu idhaahdo ma soomaysid waaye unbay leedahay khalaas ila xuquuq badan baa jirte laa tasuumu lmar'atu wa bacluhaa shaahidun ilaa biidni gabadhiyay soomin iyadoo ninkeedu joogo ilaa inuu fasaxa mooyaane marka waa laba qeyd inuu ninku joogo iyo inuu fasaxo hadduu maqan yahay dee waxba fasaxa loogama baahnaa hadduu xataa maqan yuu diidu idhaha soomin oo maxaad ujeedaa wey ilan tan waxaa laga yaabaa inuu nafteedaba ka doono moogta laakiin isagoo dabadda ka maqan hadduu idhahda ha soomi way iska soomi kartaa waayo maalmaha jira la diiday aynu raacin doono maalmaha waxaa ka mid a labada ciidood ciid la sooma ma bannaana mar haddii ay waddankaasi aada joogto mandiqadda aad joogto kol haddii laga ciido caalamka gaalada iyo ka islaamka meeshaa doonto joogo deegaanka aada ku nooshay kol haddii laga ciido adiguna la ciid maalin qallaa xataa haddii lagu yeelanayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ummadda u diiday maalinka ciidda ciidulfidrida iyo ciiduladxaa in la afuro in la soomo waa u diiday waxaan la soomaynin maalmaha loo yaqaano ayaamu tashriiq ciidda carafo saddexda sii raacsan wuxuu rasuulku yidhi ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbi maalmo wax la cuno oo la ciido oo la fantiisiyeeyo oo la dabaal degayo weeye oo la cabayo ma bannaana waxaan la soomaynin oo isaguna afraad maalinka jumcaha uun inaad la eegato oo tira wallaahi maanta baad iska fasax tahay oo shaqooyinka aad ka fasaxtay aan iska sooma maya ciidda laftigeed jumcaha laftigeesu waa ciidii usbuuca saa daraaddeed isagana lama soomayo waxaan la soomaynin oo shanaad yowmu shak maalinka laleey talow maanta ma ramadaanba bise ma aha wax cadna lama hayo arag lama hayo waa mamnuuc isagana in la soomo cibaadada xaqaa'iqeedunbaa lagu xisaabtamaa waxa lixaadoo aan la ogolayn in boqol soon aada noqoto ama si kale haddaynu dhigno sanadka oo dhanba aad tidhaa 360 maalmood carabigu waabuu ka yaryahay intaa sanadku uu yahay oo dhan baan soomaya
taana lama ogola oo dee maalmihii shantahabaa ku jira waxaan la ogolayn oo kale waa ka toddobaad ee soomka toddobaad isagana la diiday waxa weeye maalinka sabtida in soom lagu gooni yeelo isna waa la diiday inkastoo axaadiidta ku soo arooray culimada qaarkood ay ka doodayaan ay leeyihin waa ducafaa ama waa daciifa waxaa sideedaadoo isagana la diiday wisaalu siyaam soomka in aad isku xidhiidhiso oo isku xidhiinta kala duwamid waa sanadkao dhan inaad maalmaha isku xidhiidhiso tani waxa weeye si kale in loo dhigo maalinkii iyo habeenkii inaad isku xidhiidhiso maantaad soomaysaa caawana waad sii soontay berrina waad soontay habeen dambe waxamaad cunin saa dambe waxamaad cunin saakuun sidaa inaad usii socoto nebigunbay u bannaaneyd keligii calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu ku yidhi ha xidhiidhina soomka adiguba waad xidhiidhisaa bay yidhaahda war aniga ilaahaybaa ayaa raashin iyo sharaabi siiye idinku ha xidhiidhina buuli oo markaas dee hadduu doono ilaahay wuxuu siinayaa tamartii qof wax cuna iyo wax cabba qof wax cabba uu yeelan lahaa marka khusuusiyaadka nebiga ayay ka mid ahayd laakiin ummadda waa ka xaraam nafta ayaa loo turayaa ilaahay addoonka inuu dhibo ma doonayo laakiin wuxuu doonayaa inuu tijaabiyo yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra aayadaha soomka jumladaasaa ku dhex jirta ilaahay wuxuu idinla doonayaa fudayd laakiin dhib idinlama doonayo addoonkii waxaa la doonayaa in naftiisii lagu yaro tijaabiyo xoogaa mashaqo ah in gaajo ah in haraada bal inuu ilaahay ogol yahay iyo inuu addoon u noqdo haddii taa u ogolaadaha laakiin lama doonayo in la dilo ama dee naftiisii ay halaag ku dhacdo soomkii sunnaha ahaa iyo masaa'ilka la socda inahaasaynu ku dhammaystirnay markaas soomkii faradkaa iyo axkaamtiisa iyo kii sunnahaaba intaasi naga filan baan filayaa wixii su-aalaana waxaa lagu soo dari doonaa su-aalaha in sha allahu wahada ma aquluhu waastaqfiru اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakatu